Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Higgs Technology. Magaciiguna waa Maxamed Xirsi. Maanta hadduu alle idin waxaan qaadan doonaa 4 khiyaano oo ku jirta Photoshopka oo ay waajib kugu tahay in aad baratid. markale kusoo dhawaada sida hore idinkugu sheegay waxaan qaadan doonaa 4 khiyaano oo ku jirta Photoshopka oo waajib ku tahay qofka Photoshopka isticmaalaya inuu yaqaano. marka koowaad aan soo kicina Adobe Photoshop. haddaba midka aad isticmaalaysid ama Adobe Photoshopka aad isticmaalaysid adiga ayay ku jirtaa, adiga ayaana laga rabaa. balse waxaa kugu talin lahaa inaad mar walba update noqotid oo Photoshopka ka dambeeyay aad isticmaashid. yacni farshanada siday u kala dambeeyeen ayay u kala wanaagsan yihiin. Adobe Photoshop ayaan soo kicinayaa. markaa soo kiciyo maanta waxaa sameynaynaa waajibka koowaad maanta aan sameynayno waxaa waaye ama triga koowaad aan sameynayno waa sidee loo sameeyaa waxa la dhaho clip mask. clip mask sidee loo sameeyaa waxaa ujeedaan meeshan waxaa ujeedaan lambar 10 oo uu ku dhex jiro Sergio Kun Aguero ciyaaryahanka xulka qaranka Argentine iyo kooxda Manchester City. waxaa ujeedaan lambarka ayuu ku dhex jiraa asagoo dabaaldegaya. sidee lambarkan sidaan oo kale loogu sabiyaa waxaa la yiraahdaa clip mask. sida loo sameeyaa marka koowaad aan soo kiciyo Photoshopka, kadib Photoshopka markaan sidaan usoo kacsado A4 ayaa soo kacsaday. yacni muhiimadda waxaa waaye inaan sameeyo clip maskigan oo keliya. waxaa aadayaa horta marka koowaad waxaan rabaa inaan sameeyo lambar 10 ayaa qorayaa. lambar 10 markaa qoro kalarka ayaa ka bedelayaa. sida Photoshop kalar looga bedelona aniga kuma sheegayo, waa taqaanaa kalarka. kadib waa weyneynayaa. markaa sidaa u weyneeyo fartana waa iska bedelayaa. farta midda aniga aan jeclahay ayaan ka dhiganayaa. sidaa markaa usii daayo saxdaas ayaa taabanayaa. waxaa sameynaa marka see iskugu dhaweyn kartaa labadan lambar inta way isku dhow yihiin soo maaha. waxaa iskugu dhaweyn kartaa falaarta dhanka xigta zeroda maahane falaarta dhanka bidix xigta ayaa qabanaysaa. altana waa soo qabanaysaa. alta adoo heysida falaarta dhinaca bidix xigta ayaa jag soo siinaysaa sida iskugu dhagaan. markay saas iskugu dhagaan waa fasaxaysaa. kadib waxaad taabanaysaa control T ama transferal lahaa. haddaad doontid adoo control T aadin meelo kale waa ka sameyn kartaa. editkana waa laga sameeyaa balse control T ayaa leeyahay. kadib waxaan rabo maahan waxaan rabaa oo keliya inaan soo jiido oo weyneeyo. okay markaas saa u weyneysid saxdaas taabo. kadib waxaa sameynaysaa layerkan halkan layers aad taabanay. layerkan mararka qaarkood inta ku jiraan waa layerada tirada badan ee wixii aad soo gelisay Photoshopka soo galaya inta ka arkay. right kaliya ayaa layerka ku kordhaysaa. kadibna waxaa leedahay rasterize file ayaa isticmaalaysaa. markaa rasterize file saas u isticmaashid oo click aad ku siisid waxaa sameynaysaa sawirka ayaa soo gelinaysaa file. kadibna waxaa leedahay haddaad u baahan tahayna caadi usoo gelin, haddii kalena replace kasa isticmaalaysaa. kadib meesha uu sawirka ku yaala ayaa raadinaysaa. sawir nooca rabtidaa gashan kartaa balse aniga sawirka aan rabo inaan soo gasho ayaa dooranayaa waa Sergio Kun Aguero. sidan ayaa isku toosinayaa. markaa saas iskugu toosiyo oo kor qariyo calaamadda saxda kor ka taabana meeshaas kore ayaa click siin ama okay ama enter leedahay. kadib layoutka ama layerska tagaysaa. kadib waxaa kor tagaysaa Sergio Aguero sawirka soo gelisay. right click ayaa kor leedahay. create clip mask ayaa halkan ku qoran. create clip mask ku soo baxaysa click ayaa leedahay. halkan waxaa aga jeedaa in Sergio Aguero uu dhex galay qoraalkii. waxaa ku soo haro waxyaabaad qurux oo sida calaamad qoraalka oo loo suubiyo white cadaan wareega iyo backgroundkana sawirkiisa ku jiro. marka taasna dhib ma lahan, ayadana sidoo kale u sameyn kartaa. marka koowaad waxaa leeyahay file aan leeyahay. kadib waa soo gelinayaa. waqtiga xoogaa igu cariiri marka ma rabo inaan howlahaas kala sii galgalo. waxaa isleeyahay waa fahmi kartiin weeyaan. kadib maadaama designka wax badan kala taqaaniin sidaas ayaa u sameynaysaa.
Sergio Aguero markaas saas u weynay sawirkiisa background-ka ka hadlaya kadib inta capacity ka yareysa layout ka tagaysa meeshaas capacity opacity ku qoran ayaa ka yareynaysa sawirkan waxaa leedahay send it to the back ama gadaal ayaa u xawileysa kadib kana ayaa kor imaanaysa meeshan 10ka kor imaanaysa 10 ku qoran tahay right click ayaa leedahay blending option aad tagaysa kadibna waxaad dooranaysaa strokes waxaa laga soo hadalnaa illustrator-ka kadibna inta waxaa ka dooranaysaa usubi already halkaas ayuu ku dhamaaday kaas number 10 kaas oo Sergio Aguero number 10 kiisi ahaa waa kaas kana waa kana same ay yihiin halkaas waxaa nooga dhamaaday sida loo subiyaa trick labaad aan gudubno trick labaad wuxuu ka hadlayaa waxa la dhaho workspace arranging hadda waxa u jeedaan in halkan uu yaalo sawir inta shaashad waaye intana shaashad sidee laba shaashad uu kala isticmaali karaa oo taa raba aga shaqeyn karaa waliba hal photoshop waxa u jeedaan sida caadiga ah sidaan waaye marka aragtid inaad page cusub furtid new aad dhahdid file aad dhahdid meel cusub ku sii furaya halkaan ku sii furaya kuwa kalena halkaas ay ka doonaysaa soo marka haddii rabo inaa labadan page hal page ka dhigo hal mar aad wada isticmaalo hal mar aad ka wada shaqeyn karo waxaa leeyahay window waa trick labaad window ayaa leeyahay kadib arrange ayaa leeyahay kadib inta aana wax ka dooranaysaa two up verticals ayaa leeyahay waa u jeedaan kana waa kan trick saddexaad aan gudubno layers ayuu ku hadlayaa trick saddexaad what about layers waxaa la lahaa halkan oo ah meesha lagu meesha shaqo badan laga qabto halkan oo wax walba oo inta aad soo gelisid inta soo galayaan sidee layeradan mathalan kaba soo qaad waxa iigu jiro andhaho shape ayaa soo gelinaya shape iyo shape kale ayaa iigu jiro labadan shape shapekan iyo shapekan waxay kala leeyihiin laba layer waaye hadda color ka bedelo colorka kan saas markay isku kor saaran yihiin oo kale labadan layer kan kale iska xiro no problem aan iska xiro labadan layer ee saan isku dul saaran sidee kan kor loo soo mariyaa kan hoos loo mariyaa kana koreeya hadda kana koreeya sidee hoos loo mariyaa marka lamana inta waxaa ka sameeyay in photoshop waxaa sameyn kartaa inaad kan inta qabatid inta layerka soo furtid kan qabatid hoos u jiidid halkaas geysid ama markaa kor aarid inaad keentidna aa kor u qaadid laakiin waxaa jirta trick yar oo laho qabanaysid control shift bracket ka furan hoos u tagaya control shift bracket ka xiran hadda hal xab inaad arabtid control shift leedahay control waxaa leedahay bracket haddana control bracket kala ku kor u soo qaadaysa trick saddexaadna sidaas uu nagu dhamaado trick afraad aan gudubno trick afraad waxaa lahaa characters oo loo isticmaalaa waxaa laga yaabaa qoraalkana inuu sidan u kala fog yahay sidee qoraalkan la isku dhaweeyaa kor vertical ahaan iyo horizontal ahaan waxaa la isticmaalaa markaas character waxa la halkan ayay ku jirtaa character allaha waa kana haddii inta ka weysid view-ga ayaa kasoo dooran kartaa ama waxa la window ayaa kasoo dooran kartaa kadibna character soo dooranaysa waa meesha laga sameeyo sidoo kale paragraph-yada laga sameeyo farta noocay noqonayso halkan marka waxaa ku jirta halkan wax ugu muhiimsan oo ah space-ka ay cunmayso fartan haddii sidan u kala weyneeyo oo tiro badan qaato way kala sikanaysaa haddaa rabana waa isku soo dhaweyn karaa meesha halkan laga sameeyo waay farta meesha balaceeda yararkeeda loogu daro waay meesha waxaa waaye farta kala signaashihiisa loogu sameeyo waay fiir hadda ujeedaan xirsigiisa u kala fogaaday marka halkan waa meesha workspace-ka ayadana meesha far haddii la isku imaanayo qoraal meesha looga shaqeeyo waa meeshan aad kalarka xataa waa aga bedelan kartaa wax walba ayaa laga qabtaa haddii cashirkan uu ku caawiyey please like saar subscribe na ha iloobin hana ilmaamin inaa taabatid gambaleelka oo kuu sahlaya in cashirkeena si dhaqsaa kuu soo gaaro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu